Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiib yaal ku soo dhawaada channelka Alnaqay Media oo caaw idiin soo gudbinaya sheeko aad u xiiso badan. Sheekadaasoo ku saabsan oday iyo gabar uu dhalay. Oday ayaa wuxuu dhalay gabar hooyadeeda ka dhimatay. Markuu wuxuu go'aan ku gaaray markii xaaskiisa ay dhimatay in gabadha nolosheeda uu kor u qaado oo barbaariyo oo wax walba uu u qabto uusan naag kalena uu guursan. In muddo ah gabadhii markuu korinayo ee qaangaartay ee waxbarashadii ay dhammaysay, gabadhii waxay suubisay magaaladii odayga la degnayd ayay ka guurtay, magaalo kale ayay degtay, asxaab ayay yeelatay. Asxaabteeda iska dhex gashay, odaygii kamaysan warqabin. Asxaabtiisa ugu dhex jirtay, asxaabtii waxay ka dhex heshay wiil ee jacayl isla jireen markaas oo is shukaansadeen. In muddo ay marka wiilkay wada socdeen dhowr bilood, wiilku wuxuu go'aan ku gaaray inuu gabadha u soo bandhigto guur. Intuusan guursan ka hor ayuu wuxuu sameeyay, ayadana way ka aqbashay, ayuu wuxuu sameeyay guriga ayuu u waday oo reerkooda inuu soo baro. Wiilka marka wuxuu ka dhashay qoys taajiriin ah oo lacag leh, hantiilayaal ah. Gabadha guriga wiilka markuu geeyay, waxay la yaabtay guriga noloshiisa, cida qaabkay yihiin, lacagta ay leeyihiin, qof walba oo guriga ka tirsan dharka uu qabo dhar qaali ah. Markaas niyaddeeda waxay iska tiri, aabbaha cidan ma u keeni kartide, haddii kale guurkaaga wuu kaa fashilmaa. Aabbaheedu waxaa nin maskiin ah, reer tabareed ah oo curyaan ah, gacan eber ay ka tahay oo gacan curyaan ka ah. Gacantaasna waxay curyaannimada ka soo gaartay meel uu ka shaqayn jiray dhuxusha iyo waxaas laga qodo. Shaqadiisa intuu ku jiray ayaa gacantii wax ku dhaceen, gacantii curyaan oo ka noqday. Marka gabadhu waxay isdhahtay, odaygan curyaanka hadda meeshan gurigan keentid cidan hantida leh, guurkaaga wuu burburaa ee waxba ha u sheegin. Wiilkii gabadha hadduu weydiiyey aabbihii iyo hooyo ka waran, hooyo iyo aabbo way dhintay, keligay la joogay ee dhahday. Waayo marka saas haddee tahay, guurkii iyo wuxuu qabanqaabadiisa u galay. Gabadha intii la guursan ayaa waxay suubisay waraaqay odayga u qortay. Waxay dhahday, aabbo aniga guur ayaa gal rabaa, nin ayaa isguursanaynaa, adina guurka inaa kaa casumo ma rabo, oo sababtoo curyaannimadaada cid hadday arkaan guurkayga ayaa burburaya. Marka saas aawadeeda la soco aabba karaal ah, arooskayga ma imaan kartid. Odayga waraaqda markuu helay ayuu wuxuu soo qoray waraaq oo uu ku leeyahay, gabadheeda inaan waraaqdan kuu soo qoro maan rabin, laakiin dardaaran hooyada ay ila dardaarantay intaysan dhiman ka hor ayaan oofinayaa. Dardaarankaasoo ah furaantigii ayada aa ku guursaday ayaa waraaqdan kugu soo raacinayaa. Furaantigaasna ma aha furaanti qiimo badan oo furaantiyaasha qaaliga ma aha, balse wuxuu ahaa astaantii jaceylka hooyada oo igala dardaarantay gabadheeda si haddaad dhinto ay dhahday. Marka aniga maadaama aan curyaan ahay oo guurkaaga inuu ku burburaayo aad u qaadatay, balan waxaa kaa qaadayaa inaan guurkaagan u soo socon, waraaqdan oo kuu soo qoraayana iigu horeyso iiguna dambeyso. Marka waxaa ogsoonataa, aniga hooyada markay dhimatay noloshii ugu fiicnayd ayaa ku nooleed, wax walba kuu qabanayay. Halaas anigoo islahay gabadhaada iyo cidla dareemin, naag kale maanu guursan. Gacanteeda curyaanta ayna waxay isdhahay, adiga hal gacan haddaad leedahay, gabadhaada ayaa laba gacan kuu leh. Balse fikirkayga qalad buu ahaa, waa qaldamo oo wax walba way isbedeleen. Marka balanaa kaa qaadayaa, mana kuu soo socdo, furaantigaasna iga guddoon, hooyada ayaa kuu soo dhiibtay. Boosta ayaana kugu soo dirayaa. Sidaasna nabaday, waxaa kuu rajaynayaa nolol fiican, guur fiican. Waa iga tufantahay. Waraaqdii odayga soo diray, waraaqdii marka guri markay soo gaartay, ninkeedii oo guursan rabay
ayada weli muusan guursanin ayaa shakiyay waraaqdan maxaaba isu dhahay qoftan qaraabana ma laha axsaabna ma laha yaa waraaqad u soo qoray bal fiir akhri ninkii waraaqdii furay waraaqda furaba uu akhriyay wuxuu arkay odayga hadalkiisa uu ku soo qoray ninkii ilin ayaa indhihiis ku soo istaageen si toos oo gabadh u soo abaar wuxuu dhahay kaalibal adiga Soomaalida dhaheen aabba ma qabi hooyana ma qabi oo way dhinteen odaygan waraaqda soo qoray oo curyaanka ah soo kuma dhalin aabbahaagii ku soo koriyay maasaan u gasho dhahay aniga quruxda aqoonta aawada kuma guursaneen laakiin waxa ku guursanay qalbi nadiif inaad leedahay sababta gabdho badan oo qurxoon ayaa jooga laakiin adiga ka doortay qalbigaaga inuu wanaagsan yahay u maleynay balse qof aabaheeda saan u gashay aniga say ii gali kartaa gabaray aad baa u maasantay arooskaygina waa kansale ee nabaday nakala daa gabadhii cirkii dhulka la wareegay waxay soo bisay ka suuysay furaantiga qabatay furaantiga fiirisay inay qalad ku jirtay aragtay aabaheedii u laabatay magaaladu degana ugu tagtay markaas waxay tiri aabbo qalada gale iga raala ahaw odaygu ka aqbalay odaygu markuu ka aqbalay kadib sanad maray ka soo wareegtay ninkii gabadha ee wada heshiiyeen arooskii sidoo ugu dhigay odaygii curyaanka arooska laga qarinayay maanta waa lagu marti qaaday sidee ay ku aqal gashay reerkeedii gacanta ku dhigatay nolosheeda hor u sii amba qaaday oo nolol raaxo leh ee ku noolaad marka waalidkaaga si walba uu yahay marna lagama faano halaas waxay ka ordayso aabbaha curyaan waaye curyaannimadiisa yaa lagu soo burin oo ninkan curyaanka maa ku dhalay saacad nagata kuma guursanan yaa lagu dhihin aabbaha wax walba uu yahay wuu yahay ma qarin kartid ninka hadduu ku jecel yahay siduu kuugu jeclaanaa ama hadduu ku rabin siduu kuugu diraa marka seen bir waalidkaaga ogsoonow caas ha ku noqon waalidkaa qofka halaas kuu soo okeysii waaye wax walba waxa ugu qiimo badan nolosha waa waalidkaaga